waxaan la tukanaa laba qolo oo aan salaadooda dhib ku qabno wadanka Holland waa kuwa waa Turki oo marka aan ku xirano salaada waa boobsiyaan kuwana waa Moroccan oo salaada subax waxay suubshaan qunuud oo rak'ada dambe bay yara aamusaan imaamka iyo muuminiinta rukuucda ka hor marka sideen yeelnaa mala qunuudna mise quraanka ayaan iska sii akhrisanaa alxamdulillah horta marka koobaad la tukada salaada jamaacada ama kuwa dadajiriya ama kuwa kale hadba kay ay idin qabsato oo salaadu meesha idin ku qabata masaajidaan aad uga gaari kartaan la tukada hadaydan masaajid ka wada fiican heli karin salaada jamaacada ilaalinteeda ka mudan mukhalafaadka ama salaadaas dadajinteeda la ilaalinayo jamaacada ilaalinteeda ka mudan kuwii salaada dib dhigay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu iskana tukada lana tukada jamaacada salaada ilaalinteedu gaar ahaan wadamada qurbaha iyo galbeedka dadka jooga jamaaca inay helaan baa wax weyn masaajidka inaad soo gasho intaasoo muslimiina saf la gashana wax weyn wey qofka naftiisa iyo iimaankiisana taasiir iyo saameyn bay ku leedahay salaada la tukada idinku waajibaadka arkaanteedii inaad ilaalisaan isku daya gaar ahaan marka qolada dadajinaysa dee arkaantii ka tagina iska daba socda sidaad ula tukan lahaydeen qof daahay iyo qof dadajinay wada tukan lahaayeen fuqahadeenu way ka hadleen dee axkaamteediina barta waxaan hadda halka ku sharxi kara maaha qaybta qolada qunuudaysana xilliga marka la gaaro adkaar wixii idin fududaatay iska akhrista inta iska taagan tihiin laakiin iyagana la tukada oo jamaaca laan salaad ha ka dhigina ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaa muslimiintana dhamaanteed si salaada sunnada nabiga hay waafajinteeda ilaahay ku soo dabaaro billahi tawfiiq